waa madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un oo ah madaxweyne dictator ah kaas oo ka dhaxlay talada wadanka Kuuriyada Waqooyi aabihiis. Kim Jong-un dunidu waxay ku taqaanaa hal adayg iyo amara adag iyo sidoo kale inuu yahay dictator aan naxariis lahayn. Kim Jong-un ayaa 9 sano ku noolaa wadanka Switzerland isagoo halkaasi ka baran jiray iskuul ku yaala. Saaxiibadii waxay sheegeen inuu aad u jeclaa basketballka. sawirro laga qaaday xilligaasi ayay sheegeen inuu ninkani si fiican u yaqaanay una jeclaa basketballka. waxa uu dalkiisa ku marti qaaday laacibkii hore ee kubadda basketka ninka lagu magacaabo Dennis Rodman oo horey ugu soo dheelay kooxda Chicago Police ee dalka Mareykanka. Kim ayaa aad u danaynayay inuu la kulmo mid ka mid ah halyeyada basketka. waa'ikan oo waxaan ahay Dennis Rodman wax fikir ah kamaan haysan Kuuriyada Waqooyi. waa arrin dhacday 2013 waxay si gaar ah u khusuusay jacaylka dictatorka maamula Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong-un. waxaan maqlay markii hore inuu dalbaday Michael Jordan balse uu diiday. anigana waxaan ahaa dabcan dookhiisa labaad. waxay igu yiraahdeen Dennis ma rabtaa inaad aado Kuuriyada Waqooyi? markaas baan ku yiraahdaa wax walwala ma aanan dareemin iyo cabsi ah. kaliya waxaan ahaa sida aniga oo doonaya inaan aado Vegas si aan u soo dabaasho. kaliya waxaan u aaday inaan basket dheelo, dadkana aan salaamo, qaarkoodna aan sawirro la galo. Dennis Rodman ayaa bilaabi doona mid ka mid ah safaradiisii dheesha basketka kuwoodii ugu yaabka badnaa. waxa uuna cagta saaray ciidda Pyongyang caasimadda Kuuriyada Waqooyi. durbo markii aan meesha soo galay dadku waxay bilaabeen sacab. waba aan yaababa sida in aniga ii sacbinayaan. markaas baan isir warheedhay waxaa tahay qof aan caadi ahayn. dhankayga bidix markii aan eegay ayaan arkay inuu yahay kaas midka ay u sacbinayaan dadku mana garanayn bilowgii hore. aniguna waxaan bilaabay inaan sacbiyo maxaa yeelay waxaan ahay Maraykan halkaas Maraykanka lagama jecla. waxaan ag fadhiistay madaxweyne ay adag tahay in la ag fadhiisto oo xitaa dadkiisu ay ka cabsanayaan. markii ay dheeshu bilaabatay wuxuu bilaabay isna inuu aniga ila hadlo. wuxuu sheegayaa maanan fahmaynba oo wuxuu ku hadlayay afkiisa hooyo. sidaas darteed way ugu adkeen balse waxaan fahmayay tilmaamaha uu bixinayay oo wuxuu ka hadlayay basketka. sidoo kale wuxuu ii sheegay inuu taageeri jiray kooxda Chicago Police. mar baan wada qosolnay markaas wuxuu yiri Dennis waxaad doonto dalbo waxaad timid Kuuriya. mid ka mid turjumaanadiisa wuxuu ugu yiri waxaad ka mid tahay dadka tirada yar ee Kuuriya soo booqday. xaq ayaad u leedahay. saaxiibayaal dad wanaagsan ayaa tihiin adinka iyo ciyaartoyda basketka. mudane oo maasan tahay saaxiib weyn ayaa tahay. dabeecad ahaan intii iga muuqatay wuxuu ahaa nin wanaagsan oo farxaddu ay ka muuqato. waqtiyo farxada ayaan wada qaadanaa aniga iyo isaga. wuxuu ahaa nin aan caadi ahayn intii aan ka arkay. wuxuu ii sheegay inuu Maraykanka inuu booqdo jecel yahay. waxaan ku yiri ko ciyaartay daawan lahayd. markaasuu yiri waxaan aadi lahaa Madison Square Garden. waliba gacmaha ayuu saas u wareejinayay.